Assalaamu calaykum. Waa markale muuqaal cusub. Casharkan waa casharkeenii labaad. Casharkeena hore waxa uu ku saabsanaa sidee baa loo ogaadaa Gmail ku kacsan passwordkiisa aan garanayna. Casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sida loo furto Gmail cusub. Anagoo raacayna sida fudud ee lagu furan karo Gmail cusub si basiid ah. Haddii ay tahay markaad kugu horeysa aad soo booqato, fadlan furo calaamadda gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino halkan. Haddii hore aad nala joogtana waa ku mahadsan tahay la joogaaga. Muuqaalkan ila daawa ilaa dhammaadka, adiga ayaa wax ka fahmi doona. Haddii aad fahmi waysay muuqaalka ku soo cesho dhowr mar, waxaad fahmi doontaa si yaroo easy ah. Casharkan ayaad wax ka fahmi doontaa. Haddaba waxaan bilaabaynaa tilmaamaha ugu fudud ee lagu furan karaa Gmail cusub. Adigoo raacaya tilmaamahan si deganaan ah u fiirso, waana fahmi doontaa casharkan. Waxaad soo furtaa browserka taleefankaaga. Chrome-ka waxaad ku dhufanaysaa calaamadda Google-ka markaad ku dhufatid waxa ku keenaya meeshaan. Waxaad ku dhufanaysaa meeshaas koonaha oo ku yaala sawirka. Meeshaan aan ku saar calaamadda ayaad ku dhufanaysaa. Wuxuu ku keenaya halkan. Haddana waxaad ku dhufanaysaa falaartaas yar aan ku saar calaamadda. Marka xigta waxaad ku dhufanaysaa meeshaan aan ku saari calaamadda. Waxaa ku keenaya meeshaan, wuxuuna ku leeyahay geli furaha passwordka kugu xiran taleefankaaga. Waxaad ku furaysaa taleefankaada passwordka kugu xiran. Hadda passwordka aniga waan iga qarsanaa. Waxaa ku keenaya labadan waji. Midda koowaad wuxuu ku leeyahay Gmail hore hadduu kuu furnaay kacso midaan. Gmail hadduu kuu furnaa kacso. Laakiin aniga midda aan rabno waa midaan, in aan furnaa rabnaa Gmail cusub. Create account ayaan ku dhufanaynaa. Waxaan ku dhufanaynaa calaamaddaas kale. Waxaana keenaya meeshaan qaybta koowaad. Waxaan gelinaynaa magac. Tusaale magac ayaan iska gelinaynaa. Tusaale aan dhihinaa dirno. Tusaalo. Hoosna waxaan gelinaynaa tusaalo jecel ayaan ku soo gabaynaa. Waxaana keenaya meeshaan, wuxuu ku leeyahay meeshaan waxaad gelisaa taariikh. Waxaan gelinaynaa labadan leenahay. Halkaana wuxuuna leeyahay wax geli. Meeshaan wuxuu ku leeyahay sanad geli. Sanadaan gelinaynaa 1995. Intuu wuxuu ku leeyahay wiil iyo gabar keebaa tahay. Haddii aad gabar tahay waxaad dooranaysaa midka kore ay ku qoran tahay format. Hadda ma fahantay? Meeshaan kale wuxuu ku leeyahay taariikh. wax geli taariikh. Intana bisha geli uu ku leeyahay. Intana waa sanadkii. Kadibna hoostaan isku kala saarnaysaa. Kadib waxaan taabanaa calaamadda nakastiga.
kadib waxaan ku keenayaa wejigan. Wuxuu ku leeyahay wejiga koowaad jecel tusaalo Gmail miyaad ka dhiganaysaa ama tusaale jecel. Waxaan leenahay tusaale jecel. Next ayaan leenahay kadibna. Inta wuxuu ku leeyahay password gasho. Passwordkan waxaan ka dhigaynaa tusaalo love. macnaha anaga Gmailka ma isticmaali rabno, cashir kaliya ayaan ku bixinaa. wejigan ku keenayaa. wuxuu ku leeyahay number miyaad ku isticmaalaysaa mase waxaas dhan waa ka gudbisaa, skip ayaad taabanaysaa. anaga maadaama Gmailkaan isticmaali rabno waxaan taabanaa skip. hadda waa kaas Gmailka waa noogu samaysmay, kadibna waa sii save galinaynaa. waxaan taabanaa calaamadana kasta. hadda saa u jeeday waa aqbalay. haddana mar kale waxaan ku celinaa calaamadda agree ayaan taabanaynaa. hadda waxaa saas noogu samaysmay Gmailkeenii oo wuxuu noo noqday mid noo shaqeeyo Gmailkii. hadda waa kaas Gmail sidaas ayuu noogu saxmay oo sidaas ayaan kusoo dhammaanay Gmailka samayntiisa. fadlan ha hilmaama inaad furato calaamadda gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino. waa ku maadsanta daawashadaada. waxaan inoo balanaa muuqaalka kale oo ku xigo.